Thank you, Mr. President. Let me begin by thanking you and the great people of Kenya for hosting us and providing us with outstanding hospitality and reception. waad mahadsantahay mudana madaxweyne iyo ogolow inaan ku bilaabo mahadsanid adiga iyo dadweynaha Kenya martigelintiina iyo kaalmeyntiina aan kala joogsiga lahayn iyo soo dhaweyntiina farxad weyn ayay ii tahay aniga in aan halkan joogo maanta mudana madaxweyne maanta waa maalin cusub waxaan ka wada hadalnay sida laba wadan oo walaalaha ay si wada jira uga shaqeyn lahaayeen kobcinta barwaaqada si wada jira Kenya waxay ka mid tahay dawladaha xiriirka ugu xooga leh Soomaaliya ee bariga Afrika iyagoo martigeliyay tirada ugu badan ee qaxootiga Soomaalida ah muddo 20 sano ka badan iyagoo ka qayb qaadanayay soo celinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxaanay u marayeen AMISOM waxa kale oo aan jeclaan lahaa inaan fursadan kaga faa'iideysto inaan u mahadceliyo shacabka Kenya sida ay noloshooda ugu horeen caawinta dadka Soomaaliyeed iskaashiga u dhaxeeya labadeena wadan waxa uu muhiim u yahay in la dagaalamo caqabadaha aan wajahayno oo ay ku jiraan argagixisada iyo faqriga booqashada dalkan waa sii wadida xiriirka dhow ee u dhaxeeya labadeena wadan ammaanka maalgelinta iyo ganacsiga xiriirka dhow ee dhaqaale ee Soomaaliya iyo Kenya kaliya ma aha in kor loo qaado nolosha malaayiinteena dadka ah laakiin sidoo kale waxa ay tahay in gacanta lagu dhigo xaaladda ammaanka ee bariga Afrika sidaa daraadeed dawladdeeda waxay diyaar u tahay in ay si dhow ugala shaqeyso dawladda xaqiijinta wada shaqeyn buuxda oo ganacsi oo u dhaxeeya labadeena qaran mudana madaxweyne markay timaado ganacsi waxaan aaminsanahay in jawaabta kaliya aysan ahayn in xaydaabka laga qaado ganacsiga laakiin sidoo kale waa in ganacsiga loo sameeyaa si sax ah iyadoo la hubinayo heerka shaqada kan deegaanka taas oo muujinaysa qaabka saxda ah ee xuquuqda dadka caadiga ah ee labada wadan la ilaaliyo mudane wada shaqeynteena waxay muhiim gaar ah u tahay xiriirkeena taariikhiga dadaalkeena socda ee la dagaalanka amaan xumada iyo faqriga waxaan doonayaa inaan kaaga mahadceliyo inaad samaysay duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi oo 2 toddobaad ku bilaabanaya waan soo dhaweynayaa taas waana ku faraxsanahay waxaana ay taas ku tusaysaa inaan haysano bilow cusub oo laba wadana si kor loogu qaado horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha waadna ku mahadsan tahay gacabtooyadaada The flights from Mogadishu to Nairobi start in 2 weeks. We will welcome that and we really appreciate, and that shows that we have a new beginning of both countries to enhance the development of trade and economic growth. And I thank you for your hospitality.